inaan dhimanayo waa ku faraxsanahay wallaahi anoo quslaaya dhimana anoo quslaayo dadka waxaan ka midnahay aniga adiga ee Ciraaq oo ugu galay markii la dhaqaayay runtii aniga markii aan fiiriyay adan ku qabtay waxaan dhahay ninka biyaha ku shubaya ma dhimanina fiiribal ana haneedkii iqaabka u xuxdo badnaay ma Allah ana inoo qoslaayaan buu maleenay wallahi anoo quslaaya dhimana inoo qoslaayaan buu maleenay wallahi anoo quslaaya dhimana waa mid ka mid ah mucjisooyinkii lagu arkay meedka Ajakis Allaha u naxariistay haddaba maxay la kulmeen Baabajey iyo sidoo kale Yacquub markii ay gudaha u galeen qolkii lagu dhaqayay meedka Ajakis haddaba waxaan kula wadaagi doonaa mucjiso la yaab leh oo lagu arkay meedka kadib markii dalab u dalbaday Allaha u naxariistay Ajakis intii uu ku noolaa dunida dusheeda lagu arkay jirkii Ajakis haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin muuqaalkaas kaas oo muujinay wanaaga iyo sidoo kale qeyrka Allah subhanahu wa ta'ala aad ka dalabto in Allah uu kula kulminayo marka aad geeyoto haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin Allah subhanahu wa ta'ala sida uu niyad wanaagiisii uga aqbalay Ajakis intii uu noolaa ducooyinkii uu ku duceystana looga aqbalay lagana soo muujiyay meedkiisii isagoo aan wali la xabaalin inta aanan soo bandhigin mucjisooyinkan iyo waxyaabihii lagu arkay fadlan marka hore muuqaalka la galay si uu baaha una gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbalelkana u furanaya haddaba daawadayaal Allaha u naxariistay Ajakis waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan kaas oo ay dadka Soomaaliyeed si weyn u taageereen maadaama uu kamid yahay lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed kaas oo bulshada Soomaaliyeed 30 sano ee la soo dhaafay ku madadaalinayay muuqaaladiisa iyo sidoo kale codkiisa haddaba Allaha u naxariistay Ajakis inta uu dhiman ka hor waxa jirtay mar baraha bulshada la soo galiyay inuu geeriyooday Ajakis hase yeeshee Ajakis oo muuqaal iska soo duubay ayaa sheegay inuusan geeriyoon hase yeeshee uusan geerida ka baqaynin maalinta uu geeriyoon doonana isagoo uu qoslayo oo faraxsan uu geeriyoon doono haddaba riyadii Ajakis ayaa u rumowday meedkiisana waxa ay ku arkeen Baabajey iyo Yacquub arrintii Allah subhanahu wa ta'ala uu ka dalbaday hase yeeshee intaan kula wadaagin muuqaalka Baabajey iyo Yacquub arrintaasi ay ku sheegayaan bal marka hore aynu isla daawano dalabaadkii Ajakis Allah subhanahu wa ta'ala uu ka dalbaday inta uusan geeriyoon ka hor ilaahayaan aaminsanahay inaan dhimanayo waa ku faraxsanahay maalinkeyga haddii lii imaado wallaahi anoo quslaaya dhimana anoo quslaayo adduunka maxaa laga qaadaa dhibka yaalo rafaadka yaalo silaca yaalo dulmiga yaalo amba ka neebsahab alxamdulillaah qof walba waa dhimanaa geeridu waa dhaminaa haddaba riyadii iyo hamigii uu lahaa Ajakis ayaa loo aqbalay waxaana markii uu geeriyooday goobtii lagu dhaqayay ama qolkii lagu dhaqayay waxa gudaha u galay Baabajey iyo sidoo kale Yacquub waxayna wajigii Ajakis ku arkeen isaga oo faraxsan dhoola cadeynayo aadanba u muudin in uu yahay qof dhintay subhanallah waa mucjiso nool runtii Ajakisna ducadiisii waa loo aqbalay bal haddaba aynu isla daawano muuqaalka Baabajey Allah u naxariisto walaalkeen Ajakis Yacquub amiin ya rabbi amiin dadka waxaan ka midnahay aniga adiga ee Ciraaq oo ugu galay markii la dhaqaayay waliba shucuurta markii laga dejinayay aan la ogolaaday inaan gudaha galno soo fiirino runtii aniga markii aan fiiriyay adan ku qabtay waxaan dhahay ninka biyaha ku shubaya ma dhimanina fiiribal ana haneedkii iqaabka u xuxdo badnaay ma Allah ana inoo qoslaayaan buu maleenay wallahi Allah u naxariisto walaalkeena waa naga tagay ala kulli hal waa naga tagay صبر إيمان الله نقصيه آمين 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 هذا الكلام سيب بدين يبقى يا بابجي إلا أنت تقنع Ajakis ما عددنا ولا حسابا وإحنا سوكوبي كرما أنتي للسجاي حمر وين نوى بحسنتي إسبتالك محل لا يدخل مقعيس دلدميري وعكسنا والله دلدميري وابو عسمي تدك جدك صوص سعدين إلا بعدنا وابو عسمي مركا تدكي أسيقا أو إلهي معروف ديس كديقا واي ميت كيسا أو معنا علف وقدري قفكو مالين تلبحنايو تدكيسا أو هلا مركا تدكيسا واي إله وقدري qofkii raacday meedkiisa ama janaasadiisa 40 qof wax ka badan dadka waxay dhahan inta badan ahlu raxmo waaye laakiin dadka aan anaga aragnay maanta misaadka jaamacadda uu buuxsamay isbitaalka Daldameer waa uu buuxsamay haddana qabuuraha u jeedin
meel istaaga ma lahan weliba jidkaa la soo socdaa wili sidiin dadka u kala maamuleeni ani xataa food cadda ee baabuurka waa iga buuxsami bajaajaan dad soo saarni haddana wakiilaan usii dhiibiyaan dhayniyo soo saar ani waa ka daahi qabuuraa waa ka daahi anaa wakiil usii dhiibi oo dadka macnaa bajaaj soo saaro iyo homeeyaalka aad iyo aad ilaahay u naxariisto qof kasta oo nool oo u dhimanayaa inta waa ilaahay inta jiifta hadday soo toosto oo ku soo gaar horta Allah u naxariisto walaalkeena jikis Yacoob amiin yaa rabbi amiin dadka waxaan ka mid nahay aniga adiga iyo Ciraaq oo ugu galay markii la dhaqaayay waliba shucuurta markii laga dejinayay aan la ogolaaday inaan gudaha galno soo fiirino runtii aniga markii aan fiiriyay adan ku qabtay waxaan dhahay ninka biyaha ku shubaya ma dhimanina fiiribal ana haneedkii iqaabka u xuxdo badnaay ma Allah anina qoslayaan buu malinaay wallahi Allah u naxariisto walaalkeena waa naga tagay calaa kulli xal waa naga tagay sabr iman Allah naga siiyo amiin hadalkaan si badin qayb qaato ya babajay ilaa inta taqana ajkis ما عددنا ولا حسابا وإحنا سو كوبي كرما انتي اللي سوقاي حمر وين نوا بوحسنتي اسبتالك محل لا يدخل مقعيس دلدميري وعكس والله دلدميري وابوحسمي تدكي جدك سو سعدين إلا بعدنا وابوحسمي مركا تدكي أسيقا أو إلهي معروف ديس كديقا واي ميت كيسا أو معنا علف وقدري qofka maalinta la bixinayo dadkiisa oo helaa marka dadkiisa way ilaa ugu daaqay qofkii ay raacday meedkiisa ama janaasadiisa 40 qof wax ka badan dadka waxay dhahan inta badan ahlu raxmo waaye laakiin dadka aan anaga aragnay maanta misaadka jaamacadda uu buuxsamay isbitaalka daldameer waa uu buuxsamay haddana qabuuraha u jeedin meel istaaga ma lahan weliba jidkaa la soo socdaa wili sidiin dadka u kala maamuleeni ani xataa food cadda ee baabuurka waa iga buuxsami bajaajaan dad soo saarni haddana wakiilaan usii dhiibiyaan dhayniyo soo saar ani waa ka daahi qabuuraa waa ka daahi anaa wakiil usii dhiibi oo dadka macnaa bajaaj soo saaro iyo homeeyaalka aad iyo aad ilaahay u naxariisto qof kasta oo nool oo u dhimanayaa inta waa ilaahay inta jiifta hadday soo toosto oo ku soo gaar haddaba mucjisadani waa cibaaro nool waxayna caddaynaysaa in qof kaste waxa uu Allah subxaanahu wa tacaala ka baryo weliba isaga oo la imaanaya niyad wanaag in Allah u aqbalayo runtii ajakis marka la fiiriyo waxa uu ahay qof aan ka walwalinin geerida kuna faraxsan inuu dhimanayo sidoo kalena aaminsanaa qadarta iyo in qof walba maalin uu dhiman doono waxaa leenahay Allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa midigta ha ka siiyo haddaba dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay fadlan aan u ducayno walaalkeen ajakis in Allah subxaanahu wa tacaala uu naxariisto runtii waa geeri dadka Soomaaliyeed walwal ku abuurtay hase yeeshee waxaan leenahay ducada 20 milyan ee Soomaaliyeed kuwaas oo sida qalbiga ah ugu duceeya ajakis in Allah subxaanahu wa tacaala uu aqbalo kitaabkiisana uu gacanta midig ka siiyo haddaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkaan ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo mahadsanidin